si rasmi ah u bilowday imtixaanka sanad jaamacadeedka 2009-2010 ee jaamacadda Bariga Afrika semesterkiisa koowaad ee magaalada Boosaaso. imtixaankan oo ka qayb galayaan dhammaan kuliyadaha jaamacadda Bariga Afrika ayaa waxaa ka muuqday in dhammaan maamulka, macallimiinta, ardayda iyo gudiyada kormeerka imtixaanku ay si wanaagsan oo isku dubridan u agaasimayeen imtixaanka, isla markaasna si degan u munaaqabeynayeen hawlaha imtixaanka oo ka socday hoolalka kala duwan ee jaamacadda Bariga Afrika. imtixaankan oo ahaa mid mustawihiisu aad u sareeyay ayaa waxaa muuqatay in ardaydu ay si weyn ugu soo diyaar garoobeen, isla markaasna ay ugu mashquulsanaayeen sidii ay natiijo fiican uga keeni lahaayeen imtixaanka ay ku jireen. Dr. Cabdinuur Faarax Yuusuf oo ah hormuudka kuliyadda BDA jaamacadda Bariga Afrika ayaa TV-ga ETN uga warramay howlaha imtixaanka jaamacadda oo maraya meel xasaasi ah, waxana uu yiri waxayna imtixaanada tan waxay ka dhacayaan dhammaan kombosyada qayb kamida way kombosyada jaamacadda Bariga Afrika sida kan iyo kan Garowe galka iyo xogaa waa naga hor dhaceen hore u qaadeen. marka halkan kuliyadaha galaya waxay yihiin kuliyadda BBA iyo kuliyadda medicineka, educationka, computer science iyo shareeca. kuliyadahaas ayaa hadda imtixaanka galaya waana semesterkii koowaad academiga 2009-2010. ardayda jaamacadda Bariga Afrika magaalada Boosaaso oo aad ugu faraxsanaa imtixaanka ay ku jiraan, isla markaasna ka muuqda iyo jawaab celin ku aadanayd imtixaanka ay galeen ayaa waxa u suurta gashay TV-ga ETN in uu la dhexmaro mikrofoonka si bal uu weydiiyo guud ahaan arrimaha la xiriira jaamacadda weyn ee Bariga Afrika iyo mooshinka imtixaanka ay ku jireen. qaar kamida ardayda jaamacadda Bariga Afrika wax ka barata kuliyadaheeda kala duwan ayaa arintaas ka jawaabay. Abdulkadir Waberi. Mr. Waberi, how was the exam that you have just finished? The exam was really good and the exam was prepared neatly and excellently, and I would like to pass the exam. Prepare yourself for that exam well? Yes, I have prepared very well. What do you expect from the exam? Hopefully 100%. Okay. How do you feel being one of the students in this university? I feel pretty good about it because it's a good university. We got good teachers. Some that came from other countries, some that study here. So it's African University. It's a good university because of there is many faculties lining in here, like computer science, BBM, and for education. A lot of faculties. This is a good university because it's the only university that Puntland have. jaamacadda Bariga Afrika oo ah tan ugu ballaaran isla markaasna la tayada ugu sareysa ee gudaha deegaanada Puntland ayaa bulshadu ay aad uga maqsuudsan tahay tayada iyo maamulka sare ee jaamacadda oo haatan horseed ugu ah sidii loo soo saari lahaa jiil cusub ayaa waxa u muuqdaa mid riyadiisii ay soo rumoobayso. Faarax Adeec, ETN, Boosaaso. ardayda maanta soo bandhigay buugaagta qof dumar ayaa tahay haddana sida aad ka dhawaajisay Marwaa, bal iiga waran qaabkii ay ku qaadatay soo diyaarinta buugan iyo dareenka aad maanta qabto. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. waxa igu qaadatay waqti badan saan horena u sheegay waxa waaye waana shaqeeyaa haddana hooyaan ahay haddana kama aan harin oo waan waday intaas waxa waaye waxaan ku dadaalay sidii aan ku dhameyn lahaa buugana shahaadadeedana ku qaadan lahaa. waxaan ka baxay jaamacadda 2007 oon dhameeyay ardaydeena hore badanaa way wada qaateen shahaadooyinka, laakiin aniga waa kana waxaan soo gaaray 2010, laakiin intaasna waxa waa isku dayay mar walba inaan shahaadadeeda helo. waxaan ku rajo weynaa inaan sii wato aan masterkii aan qaato insha Allah September ba jaamacadda laga bilaabayo. waxaan ahay ardayda
nimaadno waa munaasabo aad iyo aad loogu faraxsan yahay jaamacadda Muqdisho danta ay ka leedahay tacliinta maxay tahay daban 2 sano ka yar ayaan meeshan isugu nimid oo magaasha sheekaynayno si jaamacadda Muqdisho loo furi lahaa maanta ma laga sheekaynayo waxaan ka sheekaynaynaa wax la taaban karo in la qaban karo ayaan sugaynaa idinkana haddaysan kaalmadiina ahaan lahayn haddaysan ahaan lahayn dadaalkiina dawladda Puntland iyo mujtamaca Puntland iyo amnigu sameeyay iyo horumarka haddaysan ahaan lahayn waxaan hubaa ma aanaan nimaadeen hadday xaafad u ekaan lahayd xaafadaha Muqdisho kale كل أنا ما إمادة وعندي كتكوج جيسيال وكلا إيمان لها لكن أنا ما أسكت إمادة المشهد لكن دد باسمية بلشة اسمه تكتي دولة بنتلان باسميسي ومال أنكو فانا إنه مال كسو آمنا نرهان روح كسو الصومالية جورو تاي لما نوحاوي سيارة طبعا كاسانو روح كستا وجورو يسكون ولا كرواي مالها وفي عن ويمد أيو قبل كان يكمدي هاي وأنا إلهي مهدي